shaqo ahaan inta badan waxaan ka soo shaqeeyay dhanka saxaafadda waxaan ka shaqo bilaabay joornaal la dhihi jiray joornaalkii dadka magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Maxamuud Guure laakiin inta badan Guure ayaa la yaqaanaa waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho ayadaan ku soo barbaaray waxaan ku soo qaatay waxbarashadeedii hoose dhexe ilaa jaamacadda dabadeed waxaan master degree u raadsaday dalka Suudaan oo aan in muddo ah ku maqnaa shaqo ahaan inta badan waxaan ka soo shaqeeyay dhanka saxaafadda waxaan ka shaqo bilaabay joornaal la dhihi jiray joornaalkii dadka oo aan qoraa ka ahaa kadib waxaan u soo gudbay telefishinkii la dhihi jiray Al Arabiya oo aan noqday madaxiisa qaybta Soomaaliya kadib waxaan ku jiray dadkii ka cararay wadanka oo dholalka shisheeye u raadsaday magangelyo waxaan ku noolahay dalka Sweden halkaas aan ka shaqeeyaa waxaan ka tirsanahay golaha deegaanka magaalada Borlenge oo aan ahay magaalada aan deganahay